Asalaamu calaykum. Maanta qisadeennu waa qiso kaa yaabin doonta. Fadlan waxaan kaaga digayaa oo marka hore kugu soo bandhigayaa in qisadani maanta ay tahay qiso naxdinteeda iyo walwarkeega walbahaarkeeda wata. Fadlan haddii aad wadna xanuun leedahay ka fogow. Qisadan magaceeda waxaa la qisadii duqsiga. Sheekadan ama qisadan waxay ka dhacday waddan ka mid ah wadamada Carabta. Qisadan maanta waxaa xuquuqdeeda iskale ama soo gudbinaya mid ka mid ah saxafiyiinta ugu caansan dalka Kuwait. saxafigan magaciisa waxaa la Faysal Xumaari Abudalaal. saxafigan waxa uu qoraa ama uu ku takhasusay dambiyada. Faysal maadaama uu yahay saxafi, markan waxaa dalkiisa hooyo cagihiisa ku soo doontay mid ka mid ah sirdoonada dalka Liibiya. Sidee ay haddaba sheekadan ku dhacday? Faysal Al-Duwaari waxa uu ka qayb galay siminaar ay dalkiisa hooyo lagu qabtay. Siminaarkan waxaa hogaaminaya ama fadhigiisa lahaa dalka Kuwait. Dhammaan wadamada Muslimka iyo waliba wadamada Carabta ay isku yimaadeen siminaarkan lagu isku aqoon weydaarsiga buu ahaa siminaarkani oo qaabkii ay sirdoonada wadamada Carabtu ay dhamaantii iskaga kaashan laayeen cadowga. Haddaba iyadoo ay saatay Faysal waxa uu la kulmay mid ka mid ah saraakiisha dalka Liibiya u dhashay. Sarkaalkan ayuu isku soo bandhigay una sheegay inuu yahay saxafi ku takhasusay dilalka, waxaana uu shaqadiisa ugu weynaayay qaabkii uu wax uga qori lahaa dilalka iyo nooca ay u dhacaan iyo waxaas oo dhan. Haddaba Faysal ninkan uu nasiibka u yeesho waa mid ka mid ah saraakiisha dalka Liibiya wadanka qaaradda Afrika. Haddaba Faysal sheekadii uu ninkan weydiiyey isla markiiba ninkan waxa uu ugu jawaabay waxa dalka Liibiya ama wadankayga ka dhacay qiso aad uga yaabisay dhammaan shacabka Liibiya. waqtigan ay qisadana dhacayso waxaa dalka Liibiya hogaaminaya ama ka taliyay Muammar al-Gaddafi, waana waqtiyadii ugu awoodda badnaa. Haddaba iyadoo ay sidaa tahay haddana waxaa dil ka geystay iyadoo Liibiya aan ogeyn in laga cabsi qabay ama laga boqon jiray Muammar al-Gaddafi. waxaa dil ka geystay weliba ay dadku yaabeen iyo qaabku u dhacay. Haddaba qisadan oo markii la fajacay loo bixiyay magaceeda duqsiga buluuga aynu ugu gudagalno. waxa uu inoo sheegay Faysal Al-Duwaari waa ninka uu wareysanayay sarkaalkan oo aan magaciisa la xusin. Sarkaalku wuxuu yiri waxaa jirta in la yiraahdo magaceeda Bassam oo u dhalatay wadankaas 21 jir waqtiga ahayd. Aabaheedii hooyadeed la nooleed. Haddaba Bassam hooyadeed iyo aabaheed muddo 10 sano ah ma dhalin wax caruur ah iyadoo kaliya ay haysteen. Bal markii dambe waxay dhaleen caruur aad u fara badan oo waliba isku xigxigta. Haddaba maadaama waalidkoodna ay weynaadeen hooyadeedna ay xanuunsanayso, Bassam waxay caawin jirtay markastaba hooyadeed. iyadoo ay xaaladdu sidaa tahay waxaa geeriyooday aabaheed, waxaanay Bassam la wareegtay dhammaan mas'uuliyaddii qoyskooda maadaama ay hooyadeed xanuunsanaysay. Haddaba Bassam maalmaha ka mid ah waxaa soo doonay wiil ay jaar ahaayeen oo ahaa wiil aad wax u bartay, shaqo fiican haysta, lacag wanaagsan, qoys la yaqaana kasoo jeeda. iyadoo ay xaaladdu saa tahay, Bassam markiiba waxay aragtay inuu shaqsigan yahay shaqsigii ku habboonaa nolosheeda. waxay ku diidaan aan habeeraatay aanu jirin. Bassam isla markiiba waxay qalinka ku duugtay ninkan in ay nolosheeda u hibaysay, balse shuruud bay ku xidho ah in aanay ka fogaaneyn qoyskeeda ama reerkooda, oo haddii uu guursado uu dejin doono meel aan ka fogeyn reerkooda. xaaladdu halkaa markay marayso waa la isku waafaqay xaalad in aan laga fogeyn reerkooda, maadaama Bassam ahayd gabadh waxbaratay oo mas'uuliyadda reerkoodana kusoo ababtay waalid jacayl caruurtoodii caawinaysa. Haddaba aroos cajiib ah ayaa loo dhigay, aroos weliba aad u weyn maadaama reerka uu kasoo jeedayna uu lahaa lacag aad u fara badan, inantii dahab iyo khaatimo iyo balaaya lagu qato. Haddaba iyadoo ku jirta shahru casalka waxay yaqaanaan bishii malabka ayaa Bassam waxay arooryaha ka mid ah soo booqatay qoyskoodii, maadaama ay sidii caadada ahayd caruurta ka caawin jirtay hooyadeed sidii ay caruurta iskuulka u geyn lahayd, quraacdana ugu samayn lahayd. Haddaba Bassam maadaama ay caruurtii ay ka caawinaysay hawsha, ayaa aroortii quraacdii iyo hawshii iyadoo isku dabaridaysa waxay markii u weyday roolidii aroortii hore lasii raacin lahaa si ay musaac uga dhigtaan. Haddaba maadaama musaaciid la waayo, waxaa lagu qasbanaaday in qof doono roolidii caruurtani ay cuni lahaayeen markay tagaan iskuulka iyo malcaamadda. Bassam waxay markiiba isku qufishay in iyadoo ay tahay qofka kaliya dooni kara maadaama caruurtuna yaryar yihiin, hooyadeedna ay xanuunsanayso oo aanay awoodi karin. sababta meesha u timid ay tahayba inay caawiso caruurtooda iyo weliba hooyadeed. Haddaba sheekada ayaanad ku daahine Bassam way jarmaatay
waxa uu jiraa roodhida meesha laga soo iibinayaa 10 daqiiqo oo sii socda iyo 10 soo socda. Haddaba waxa weeye basa markii ay roodhidii doontay ayaa reerkii ugu dambeysay muuqeeda maqalkeeda iyo aragtideedaba. Hooyadeed waxay sugtaba caruurtii sidii ayaa lagu diray iyagoo bilaa quraaca. Waxa weeye waa la sugay sidii loo sugay maalin markii dambe ninkeedii ayaa shaqadii ka yimid. Waxaana loo sheegay xaaladda jirta maadaama ciyaalka xitaa soo noqdeen oo aanay basaam weli soo noqon caruurtii quraac la'aan lagu diray. Ninkeedii shaqo tegina uu weliba isagii loo sheegay oo uu dib u soo baadi goobay. Haddaba cid kasta oo markaa loo tuhmayay waa la weydiiyey su-aasha ay dadka ku wareeriyeen waxay saaka ayay naga soo baxday sida adoo sheeko dheer waxba aanad ugu daalin. Waxa aakhirkii la tagay dukaankii loo diray ama moofadii roodhida ay kasoo iibinaysay loo diray. Moofadii baa la weydiiyey war gabadh baa caynkaas oo saakan naga soo baxday ma aragteen haa roodhidii bay naga iibsatay waana naga tagtay. Haddana cafeteria iyo maqaaxi iyo supermarket isku yaallay baa loo tagay lana weydiiyey isla su-aashii oo kale. Iyagina waxay yiraahdeen hal mabaanan arag maanta oo dhan baan halkan joognay caynka adoo sheekadii waxba aan idin soo gaabiye. Haddaba qisadeenu bartay ka xilmasaa waa halkan isla markiiba ninkii waxa uu hooyadii inanta dhashay la wadaagay in booliska aanay ka fiirsanin xaaladan. Booliskii magaalada ayaa loo tagay. Cidda loo tagayana waa qofka maanta sheekadan uga sheekeynaya Faisal Xurmaan Abu Dalaal waa ninka uga sheekeynaya qisadan. Waana sarkaalka xaafadan ama magaaladan ka taliya ee haysta oo waqtiga isagoo ahaa taliyaha xaafadda. Taliyahan markii loo tagay ee xaaladii loo soo bandhigay wuxuu weydiiyey su'aalihii koowaad ee weydiiyay waxay noqotay maadaama boolisku haddii qof la waayo su'aalaha koowaad la weydiiyo waalidka iyo qoyska ay tahay ma cid bay cadow haayeen sidee loo waayi karaa. Isla markiiba ninkeedu wuxuu sheegay intii ay isqabeen in aanay arag qof ay dhibtay ama ka soo cabanaya. Haddaba boolisku oo su'aalaha sii badiyay ayaa waxay isku dayeen in ay wax ka ogaadaan bal qoyska laftigiisa inay cadow ku dhexlahayd maadaama ay qoyskooduna ahaa qoys aad u ballaaran. Wadamada Carabtuna badanaa haweenka si yar oo fudud baa loo laayaa. Haddaba hooyadeed baa la weydiiyey cid cadow oo lahayd sidoo kale abtiyaasheed adeeradeed iyo dhammaan ehelkeedii balse qof kastaaba waxa uu sheegay inay basmaan ahayd qof aad u wanaagsan oo furfuran dadkana aad u ixtiraamta. Sidaas sheekadu markay halkaa ay marayso ayay boolisku waxay ogaadeen xaaladdu inaanay ahayn xaalad fudud. Boolisku halkaas bay ka soo galeen arrinka xaajaduna bartaas ay ka qaraaraatay. Ciidamadii booliska sirdoonka iyo weliba khubaro kale oo iskaashanaya waxay arrinkii isla garteen inuu yahay arrin la oran karo afduub. Haddaba xaaladdu halkaa markii ay marisay ciidamada sarkaalka ugu sarreeya oo ah ninka sheekadan inooga sheekeynaya ayaa waxa uu markiiba booliska u soo bandhigay iyo sirdoonkaba in la helo qof ku takhasusay dambi baadhista. ciidamada saraakiisha waxay isbaadhaanba waxaa lasoo helay sarkaal aad u furfuran caqli wanaagsan dadkana saaxiib la ah balse aan la garanayn goobta loo dirayo. Waa inuu ahaada askari ku cusub deegaanka oo ah weliba nin saaxiibal ehlaya oo ah qof kasban kara qof kastuu la kulmo. Haddaba xaalkuma wuxuu isjiitaba askarigii waxa uu soo gaaray goobtii loogu talagalay si uu uga howlgalo shaqadiisana uga bilaabanto. Isaga kaliya waxaa loo diray in uu indha-indheeyo haba yaraatee tallaabo kale ma qaadi karo. Halkaa hawsha markay inoo marayso askarigii waxa uu tegay goobtii loogu talagalay oo ahayd goob uu markaa wax ka xuraamin karo ama uu ka ogaan karo oo ah maqaaxidii iyo supermarketkii iyo hawshii inantu bartii ay ku dambeysay maadaama inanta lagu tuhmayo 3 goobood oo ah gurigooda inta u dhaxaysa maqaaxidii iyo cafeteria iyo weliba halka ay roodhida ka soo iibisay. Askarigii waxa uu fadhiistay maqaaxidii waxaanu ka dalbaday shaah. Maalintii koowaad sidaas ayay ku tagtay. Maalintii labaad sidoo kale. Maalintii saddexaad ayay halkaa hawshu ka soo cadaatay waxa la oran karo waa qisadaynu halka u socoto. Askarigu bartii isagoo fadhiya waxa koobkii shaaha ku istaagay duqsi waana qisadeennani magaca ay xambaarsantahay duqsiga buluuga ah. Duqsigii markii uu arkay ayaa waxa weeye maalintii labaad haddana waxa uu arkay duqsi labaad. Hawsha halkaa marka ay marayso waxa uu askarigii ku noqday goobtii shaqada looga soo diray oo ah halkii saldhigii booliska. Sarkaalkiisii markuu la kulmay oo ah ninkan hawshan ama shaqadan sheekadan inooga sheekeynaya ayaa wuxuu sheegay goobta in haba yaraatee aanu ku arag wax khatar ah oo aan oran karo
gabadhaas basmaan ah waa loo waayey. Haddaba askarigii waxa uu soo bandhigay waxyaabihii meesha ku soo arkay in goobtu ahayd goob nabada oon haba yaraatee xasuulis darra aanay ka jirin cid dumar iyo waxba aan lagu qashqashaadin hariyo habeenna aan taagnaa, balse waxaan ku arkay buuri duqsiga buluuga ah. Askarigan saldhigga booliska haysta oo ah ninka sheekada inooga sheekeynaya ayaa wuxuu markiiba yidhi goobtiina gee. Labadii askari waa isa soo raaceen waxaana yimaadeen maqaaxidii shaaha ka dalbadaan. Sidoo kale duqsigii baa wuxuu ku soo istaagay shaahii ay cabayeen iyo weliba miiska ay fadhiyeen. Mid kale ayaa yimid. Haddaba askarigii ayaa wuxuu sarkaalkii sirdoonka ku amray inuu dabadda istaago duqsigaas markuu soo duulana uu dabagalo. Askarigii sarkaalka ee saldhigga booliska haysta waa ninka sheekadayna inoo wadee waxa ay daba raaceen labadoodii duqsigii, waxaana duqsigii siduu u duulayay uu dalaq la yidhi ama uu daf la yidhi goobtii supermarketka ahayd ee ugu dhoweyd, waana meelihii lagu tuumayay gabadhii basmaan ahayd. Halkii markii ay galeen isla markiiba ninkii haystay supermarketku wuxuu gartay taliyaha ciidanka booliska waanu salaamay. Salaan kadib waxa uu sheegay in ay u baahan yihiin goobtiisan inay indha-indheeyaan, balse isla markiiba ninkii supermarketka haystay wuxuu iska soo jaray. Taliya ma dhibaataa jirtaa? Anuu ma iibiyo cunto dhacday iyo waxa la halmaala iyo weliba khamro iyo hawl dee aan wadanka xaaraan ama sharci darro ka ah. Balse taliya ciidanka boolisku wuxuu sheegay in ay hawl ku jiraan oo ay rabaan inay baadhaan meheradiisan ama supermarketkiisan. Okay wuu soo dhawaada. Isla markiiba waxa la weydiiyay yaa kula haya meherada. Waxaan uu sheegay in goobtan ama goobtiisa shaqada ay ka caawiso oo kaliya xaaskiisa oo weliba marmar iyo dhif iyo naadir u timaada. Halka hawshu markay marayso taliyihii wuxuu sheegay in uu xidhay yahay ninka supermarketka haysta. Haddaba ninkii supermarketka haystay iyo meheradu isla markiiba waxa jeebo ku dhuftay sarkaalkii kale sirdoonka ahaa. Taliyihii ciidanka booliska wuxuu amar ku bixiyay in saraakiisha lasoo badiyo, meherada la xidho, dabagel lagu sameeyo, dabiya daca la baadho meheradan supermarketka ah. Haddaba sidii loo baadhayay meheradii waxba waa laga waayay. Ninkiina gacanta lagu hayaa waa la xidhay, saldhigga la geeyay. Maadaama qofkii la xidhay dambi lagu waayay, duqsiga buluuga ahna marba marka kasii dambeysa uu sii badanayo meherada ayaa waxa uu taliyay amar ku bixiyay in lasoo faago sawirka meeshan lagu istaagayo ama dhulka marmarka la mariyay in gebigiisaba la qaado.